asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka habeen ee idaacadda rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mucaaradka u dhigay siriq siyaasadeed puntland oo sheegtay in xeebaha gobolka bari lagu arkay markab labaad oo laga shakisan yahay xildhibaanada golaha samata bixinta qaranka ayaa sheegay in shirkii shalay dhex maray madaxweynaha iyo mucaaradka uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan iyo weliba iska daba wareeg iyo rajabeel wararka dibadda ee warkaan idinku haynana waxaa ka mid ah Turkiga oo galay booska shanaad ee la ganacsiga Israa'iil kana hormaray dalka Ruushka xilli Israa'iil ay gumaad ay ka wado magaalada Gaza qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka habeen ee rasmi radio hase ahaatee waxaa warkaasi oo dhammaystiran la diyaariyay waryaheena Daawud Ismaan Al-Qasaala wararka laga helay degmada Bareeda ee gobolka Bari ayaa waxay sheegayeen in Puntland ay ku jirto qorshe lagu doonayo in lagu soo qabto markab kale oo laga shakisan yahay sida kaasi oo hadda taagan xeebaha Raas Caseer meel u dhow deegaanka Bareeda markabkan ayaa la sheegayaa in uu muuqaal ahaan la mid yahay kii dhawaan lagu qabtay Bareeda xildhibaan Cumar Qariib oo ka tirsan golaha deegaanka Bareeda ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay in markabkani isaga uu sheegay in xaaladani badda ay imika kacsan tahay balse ay qorsheynayaan tallaabo rasmi ah in maalinta birita ay ka qaadaan Bareeda meel xoga u jirta waxa uuna u eg yahay markabkii hore badda ayaa kacsan waana u diyaarsannahay in aan ilaa iyo birita tallaabo aan ka qaadno ayuu yiri xildhibaan Cumar Qariib markabkii hore ee lagu qabtay xeebaha Bareeda ayaa la geeyay dekedda Boosaaso halkaas oo uu baaritaano ay wili uga socdaan iyadoo ay sajiricid sheegatay lahaanshaha markabkaasi waxaana soo baxay tuhno xooggan oo sheegay in markabkani cusub uu qayb ka yahay shixnad kale oo hub ah oo si sharci darro ah lagu doonayay in si dirqi ah dalka lagu geliyo xildhibaanada golaha samata bixinta qaranka ayaa sheegay in shirkii shalayta uu dhexmaray madaxweynaha iyo weliba mucaaradka uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan iyo weliba iska daba wareeg rajabeel ah xildhibaanada golaha samata bixinta qaranka ayaa waxa ay walaac ka muujinayaan marxaladda adag ee waddanka uu ku jiro hubin la'aanta siyaasadeed kala dhex taagan xukuumadda iyo weliba dowlad goboleedyada dalka Jubbaland iyo weliba Puntland hubka sharci darrada ay ku soo qulqulayo waddanka abaaraha isku dirka iyo weliba beelaha iyo dagaalada lagu qaadayo deegaanada nabdoon argagixisada ku tagrifalka awoodeed ee xukuumadda talada haysa ay ku tallaabsanayso oo dhammaantoodba taabanaya masiirka iyo weliba dowlad dhisidda mustaqbalka iyo rajada bulshada Soomaaliyeed goddheer ay ku ridayaan waxaa kaloo xildhibaanada ay ka walwalsan yihiin iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay ka warsugayaan muddo 2 bilood ah shirarkii u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka inawiliyeen in ay ka soo baxaan go'aano waxtar leh oo isku keeni kara ummadda Soomaaliyeed ee kala dhowday ay nasiib darro ay tahay in shirkani ugu dambeyntii shalayto 20 bishii 7 2025 uu ku soo dhamaado natiijo la'aan iyo iska daba wareeg rajabeel haddaba xildhibaanada samata bixinta markii ay qiimeeyeen mowqifka dowladnimo iyo miisaanka madasha mucaaradka ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed la wadaageen rajadii laga qabay in ay xukuumadda talada haysa lagu soo dabaalo xayndaabka dowladnimo ay mugdi ku sii jirto loona baahan yahay in xildhibaanada ay bulshada qaybaheeda kala duwan culimada dhalinyarada haweenka waxgaradka iyo weliba ururada bulshada ay u istaagaan hormuudna ay ka noqdaan badbaadinta wadajirka iyo weliba qarannimada Soomaaliyeed qaadana tallaabo kasta oo lagu hortegayo laguna xakameynayo damacyada gurracan ee xukuumadda talada haysa ay ku tallaabsanayso sidoo kale xildhibaanada oo dareensan isgoyska adag ee Soomaaliya ay marayso ayaa waxa ay u mahadcelinayaan dhammaan beesha caalamka ee muddadii dheereed taageero garab istaaga la barbartaanay dowlad dhisidda Soomaaliya waxayna ku boorinayaan in ay sii wadaan dadaaladooda ku aadan kobcinta xasilinta iyo weliba horumarka dowlad dhisidda Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta madaxtooyada ku qaabilay siyaasiyiinta mucaaradka ay ku mideysan yihiin madasha samata bixinta iyagoona si wada hadaladooda wararka ayaa sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu tanaasul sameynayo ila wareedyo xogaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud golaha samata bixinta ka aqbalay in ay dib loo eego cutubkii afraad ee dastuurka ee cutubyada siyaasadeed oo wax walba ku dhan yihiin kaas oo horeyba baarlamaanka uu wax ka bedelay arrintan ayaa ahayd mid ka mid ah qodobadii ugu xasaassanaa ee dooda adag ay ka taagneed waxaana muuqata in madaxweynuhu uu markani u tanaasulayo mucaaradka xubnaha ka tirsan mucaaradka oo aan la xiriirna ayaa noo sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diyaar u yahay inuu ka laabto cutubka afraad ee dastuurka kaas oo ah kii khilaafka ka taagnaa si kastaba ahaatee ila xogaal ah ku dhow madaxtooyada ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha
uusan weli go-aan kama dambaysa ka gaarin, balse uu qorsheynayo in uu arrintani wadatashi kale ay ka yeeshaan hay-adaha ay khusayso. natiijada wadatashiyaasha ayaa la filaya in dib loogu soo bandhigo kulanka soo socda, laguna wado inuu dhaco 10 bisha Agoosto. mucaaradka oo ka niyad wanaagsan sidii hore ayaa galabta maqribtii ka dareeri doona filla Soomaaliya, iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u tanasulayo arrintan dib u eegisna ay ku sameynayaan ama wax ka bedelka dastuurka, taas oo xasan sheekh uu horeyba ugu bixiyay xoog, xoolo, xilal iyo weliba waqti badan. ugu dambeyntii Turkiga ayaa galay booska shanaad ee la ganacsiga Israa'iil markii ugu horeysay kana hormaray Ruushka. ganacsiga Turkiga Israa'iil ayaa xawli u siyaadaya dagaalkii Gaza ka bacdi, welina si xawli ah sare ugu socda, inkastoo ay xiriirka ganacsiga iyo weliba kan militariga u dhaxeeya Turkiga iyo weliba Israa'iil uu aad u sii xididaystay dagaalka Gaza ka bacdi. haddana Erdogan iyo weliba Turkiga ayaa si joogto ah warbaahinta uga nacladay Israa'iil, laakiin si hoose ayuu u xoojinayaan xiriirkooda labada dal. daawadale intaan ku soo koobay wararkan rasmi radio anigoo Al Ghazala idin waramayay kulankayga kan xiga, sidaas iyo nabadgelyo.